دمانتين وحديث السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta taariikhda tahay 20 December 2018 kuna beegan sanad guurada 75aad ee ka soo wareegtay aas-aaskii booliiska Soomaaliyeed waxaan salaan iyo bogaadin u dirayaa dhammaan booliiska ummadda Soomaaliyeed hoosaskooda ubadkooda meel kasta ay joogaan dalka Soomaaliyeed waxaan bogaadinayaa xilkasnimada daacadnimada iyo gudashada waajibaadka booliiska la garab taagan yahay ummadda Soomaaliyeed qaasatan sugada amniga oo ah tiirka ummad kasta ay ku noolaan karto saldhigna u ah xasiloonida iyo horumar waara mudayaan iyo marweyn dhammaan waa la wada soconaa horumarka iyo waxqabadka la taaban karo ee booliiska Soomaaliyeed gaaray muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa xusid madan dhacdooyinka muhiimka ah ee booliisku qabtay sida ka hortagga cadawga ummadda Soomaaliyeed ee al-shabaab oo tira aad u badan ciidanka booliiska gacanta ku dhigay fashilinta iyo gacan ku dhigida dhagarqabayaasha ku howlan waxyeeleynta ummadda Soomaaliyeed gacan ku dhigida gawaarida qarxa laga soo buuxiyay baarida ururinta cadeymo iyo dabagal joogto ah ay ku hayaan dambiilayaasha isku filnaashada booliiska Soomaaliyeed inay awoodaan tababarada ciidanka booliiska Soomaaliyeed taas oo laga kaaftoomay dad shisheeye inay ciidankeena tababaraan mudayaan iyo marweyn wasaaradda amniga gudaha oo gudanaysa waajibaadkeeda ay qaranku hayso waxay mar walba la garab taagan tahay horumarinta tayeenta kobcinta booliiska Soomaaliyeed iyo sida ay u heli lahaayeen daryeel agab isgaarsiin u suurageliya inay gutaan waajibaadkooda iyo xilka ay u hayaan qaranka Soomaaliyeed sida hadaba loogu miradhaliyay maxaan soo sheegay wasaaradda amniga gudaha waxay qaaday talaabooyin muhiim ah sida uqurgalka xaaladda dhabta ah ee booliiska Soomaaliyeed ku sugan yahay xaq ciidan agab dhismayaal daryeel xirfadeen waxaana soo dhameystirnay wajiga koowaad ee baaritaanka uqurgalka marxaladda booliiska taas oo ah ora barnaamijkaas waxaan sameynay sanadka hore December waxaan soo dhameynay booliiska federaalka telekoobkooda hadda waxaan cadeyn karnaa taliyaha dhinaciga taagan booliiska federaalka inta ka koobihiin tir ahaan inta rag iyo dumar ah darajada kala sitaan sidoo kale xirfadda iyo aqoonta ay soo qaateen ama tababarada ay soo qaateen intaas waxaa dheer inta howlgabka ah ama inta dhaawacmay iyo inta aqoonta ah ayagana cadeyntooda waa haynaa marka intaas dhameeyna waxaan jano gudin feeska labaad oo ah maamul goboleedyada waxaan soo dhameystirnay maamulka Jubbaland South West iyo Galmudug waxaan hadda noo socdo aan mar dhow soo dhameystiri doonaa Puntland iyo Hirshabelle waxaan noo soo baxday booliiska ummadda Soomaaliyeed inay u baahan yihiin dhammaan kobcin dhan kasta ah waxaan noo soo baxday inay laga marmaan tahay casriyeenta booliiska ummadda Soomaaliyeed si ay ula jaanqaadaan faldambiyeedka cusub ee ku soo kordhay adduunka sida argagixisada tahriibayaasha muqaadaraadka iyo dambiyada abaabulan mar labaad waxaan mahad gaar u celinayaa dhammaan booliiska ummadda Soomaaliyeed goob kasta ay ku sugan yihiin waxaan idin rajaynayaa caafimaad cumri dheer iyo in Ilaahay sanadkiisa nabad isku keentuso ugu dambeyn waxaan idin xasuusinayaa in booliisku uu yahay barbaariyaha iyo saaxiibka gaarka ah ee bulshada Soomaaliyeed udubdhaxaadka amniga iyo hooyada dawladnimada waxaan idin farayaa cadaalad sinaan ay ka reeban tahay qabiil iyo qof jeclaysi si hufan inaad u gudataan waajibaadkiina idinkoo halka dhig ka dhiganaya booliisku waa ummadda Soomaaliyeed waa booliiska waa mahadsantihiin